cuud nebigu dad buu ku dadaalay dhoobo dhagaxna kuma dadaalin ashyaa kuma dadaalin nebigu waxa uu ku dadaalay waa basharka likulli ummatin amiin wa amiinu ummatii abaa cubayda buu rasuulku yidhi ummad walba aamin bay lahayd aaminka ummaddaydu waa abaa cubayde buu rasuulku yidhi wamaa xadasakum ibnu mascuudin fasaddiquuhu cabdillaahi ibnu mascuud waxa uu niiga sheekay oo dhan rumaysta buu rasuulku yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati man sarahu an yandura ilaa shahiidin yamshi calaa wajhi alardi falyandur ilaa طalxa bini cubaydillah buu rasuulku yidhi ninkii jecel inuu arko ahlujanno arrada dusheeda socda ha arka buu nebigu yidhi طalxa binu cubaydillaah likulli nebiyin xawaariy nebi walba gargaare ayuu lahaa aniga gargaarahayguna waa zubayr buu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam dadkoo dhan buu nebigu yidhi jannaday jecel yihiin jannaduna waxay jeceshahay salmaan iyo maqdaad iyo bilaal iyo camaar bay jeceshahay buu rasuulku yidhi ruba ashcasa akbara madfuucun fi labwaab low aqsama cala allaahi la abarah minhum baraa binu malik nebigu wuxuu yidhi badanaa kuwa boodhaysan oo timoogu rifrif ay leeyihiin oo albaabada lagu celiyo oo hadday ilaahay ku dhaartaan daartooda ilaahay aqbalaayo baraa binu maalik baa ka mida buu rasuulku yidhi nebigu kuma dadaalin dhoobay wuxuu ku dadaalay bashar dad wuxuu u yimiday sida maanta innagu aan ku jirno si ka daran ku nool dadkii buu dadaal iyo fikir iyo duco u geliyey dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen asxaabu maxamed bay noqdeen markii dambe suxba darajad ka sarraysa ma jirto ciisena xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi nebi maxamedna asxaab baa lagu magacaabay jamacaddiisii asxaab khaatama alambiyaa bay suxbad la yeesheen saxaabatu moxamed baa la yidhi cali bnu abi aalib baa la weydiiye oo lagu yidhi abubakr asidiiq iyo mu'minkii ahle fircoon midkee fadli badan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee mu'minka ahle fircawn oo arlada laga buuxiyey saacadda abubakar uu godka nebi maxamed kula jiray ayaa ka wada khayr badan buu yidhi daaka rajulun yaktumu iimaanahu kaasi nin wuxuu ahaa iimaankiisa qarsanayey wa haadaa rajulun aclana iimaanahu abuubakarna nin wuxuu ahaa iimaankiisa markiiba muujiyey oo nebiga isgarab taagay buu ahaa calayh isalaatu wassalaam fa kuma dadaalin nebigu dhoobada iyo arlada iyo turaabke bal nebigu bini aadankuu ku dadaalay bini aadankuu ku dadaalay quwaddiisi iyo fikirkiisiina wuxuu ku bixiyey siday bashariyaddu u islaaxdaa siday bashariyaddu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhowaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqa ula yeeshaan taasuu nebigeennu ku dadaalay calayh isalaatu wassalaam ummadihii hore baa la yidhi mar allii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusaa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weyddi ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min aلsamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weyddi ilaahay inuu xedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaane cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaane arlada u nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamulambiyaaya oo imaamulambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiisa waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa nii yeelaya aniguna ibarya waa niga ajiibayaa dhammaan asxaabta nebigu ducaddooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keena maaragtaanay falastiin nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi halkaas
قال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخاء مفسرين تدقى المقع عيسى وحيري أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك القبرس أين عرشك بالقصة كوكيني من اليمن إلى يمارك تاني فلسطين إيقا محوها يست صلة بالله إلهي بعلاق الله يشي الله هنا فهم سيئا قرآنك الله هنا فهم سيئا إيمانكنا قلبك الله هنا رادعي حقيقة الإيمان الله هنا سيئا هل دعو كليا نقاسي وعالي اسم الله الأعظم كو يغاني إلهي بعلاق الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي القبرس أي عرش جيب القيس من أرض اليمن إلى فلسطين لقو كان القبرس ولكن أصحاب النبي رضي الله عنهم إمسا خوارق العادات إمسا كسو ظاهرتنا ولا شو كم سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عاص مركو مصر تقي dadka reer masar caado waxay u lahaayeen gabadhii dhalata gabadh bikira oo shaabada qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalle geliyaan lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaas biyihiisu ziyaadayeen deedna markaas beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey عمر بودري رسالة مركز يا أمير المؤمنين أرنت أصلا كوارك الرئي مصر وأنا كجوجيي بيه نواسي قول يانا محان سميع مركز عمر كويد أصبتا وادا صيبتي بوكيد وادا صيبتي مارك تاني وادا صيبتي لكن وحاكو شيئا ورقد ما صدر يا أخيارتو دي عقاشو دا أروريو وبيقى النيل دلتك ورقدان وبيقى كدو الفرو كدو الأخري دانا كو تربو يري وحي إلهي كفل ماشا وادرك دون تاي وعمر قف ورقدو درا تاسا معقولة سوما قف وبي ورقدو درا كورما وصلة بالله علاقة مع الله بيها لندكاس ورقدي بو كاني ورقد وحاكو قرن من عبد الله بيكسعتا أمير المؤمنين عمر بيكسعتا إلى وادي نيل بيكسعتا إن كنت تجري من قبلك فلا تجري حتى أود الله ده تكسعون يسكوا وبانينها السعون حدو إلهي كسعسين أي ولقانا الله واحد كي قهارك وحا ويدي سنين كسعسيه ورقدي بالله قطوري لحية وندراع أي كروك عيبا لدي وبيجي إلى جوغدنا وبيجي اسمتاقي بأمر الله يجري أمر قلائي بكو السعودة ريمسر عقاش ودي صلاة تودي مركي أركين كرامة داس فدخلوا في دين الله أفواجا قصد الله وادوحة ويان سيدنا عمر رضي الله عنه مدينة المنورة منبرك كخد بدينيا عيدا كي صحابي السارية ووتي فلسطين جوغي قالوا دبر جبين تعير ربين إني كسا ميان هل كعسو عمر كلاها اللي كلمات خطبة عن كل جرين أي كسو دروا يلي يا سارية الجبل ويا سارية الجبل يا سارية حق بورتا يا سارية دنع بورتا اسكفيري خطبتي مركو كدا دعي أصحابت ويا بين يا أمير المؤمنين ما تمحاتري مرقا سروحاني لهذا إني شيء مايه عيدا كا الله كيني بلو ودركي دونتاني جماعة دي باصون نقطي فتح يا غنيمة إلا صول لامين يا غلبة يا هزيمة يكو صوق وليستي مرقاسي أحواشي بياميين مالين عين كاس أنكو دقالكي وديار قروني ومعركة دقالكي ونوبل عمي أيا قالوا دبر جبين نقصوا السميين فسمعنا صوت عمر وسط الجبال بورد بحدود أنكو مرينا هذا الكي عمر ما هلقا كم غلبي دادين هذه علاقة مع الله مرات ليس مرة آخر سسير أصحاب مرات بدها يدل مرين بدها أصحاب الرسول مشوا على البحار هذه النبي عيسى موسى عليه السلام قوم قيسى بدأ إلى هاي أكل جاحيب علمدوا إلى أصحاب محمد نبي محمد لسعن أي أصحاب النبي قوة بيدا يدل مرين فردوه قي وهذا إبراهيم الأدهم دوني بو لسعودي دونتي با كعدي موج بدي با آدو كعدي دادكي دونت لسعودي يودن أيقنوا بالهلاك هلاك بي دريمين فصاحوا الصيحة ويقيلين رقية دمر أبض ويقيلين هل مركلي وشيخي وهردي
hurdadiibuu ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka ilaahow qudraddaadii na tustee dulqaadkaagiina na tus buu yidhi baddii baa ilaahay fadhiisiiyey mar keliya cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka waaryaada muslimka waxay doonaan ha qaataan gaaladu ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka o dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn cilaaqa maca allah siirada ku laama siirada akhrista asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan asxaabtu waxba ma ahayn laakiin sila billaahi bay lahaayeen cilaaqa maca allah darsigaana ayay ka qaateen khaatamu alambiyaa bay ka qaateen khaatamu alambiyaa ghaswatu daata ariqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen wakhta duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geeda kaley raadsadeen markaa buu nebigu seeftiisii soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi cidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo wuu u jeedaa nebigoo geedkii hoos hurday keligii asxaabtuna way seexdeen wakhta dahiira weeyaan cadaaddu waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisii nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu warka maaya qisadda dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buuhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisaddii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisaddaas ina haada اkhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah 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 fasaqada sayfu min yadihi qisadda meesha ka dhacday asxaabtu ma joogin laakiin nebigaa uga warramaya muxuu nebigu uga jeedaa qisaddaa uga warramaya tawakulkuu barayaa tawakul ictimaad cala allah makhluuqoo dhan siduu u dhan yahay laa yataxarak ilaa biiraadatihi walaa yaskun ilaa biiraadatihi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manact walaa raada lima qadayt walaa yanfacu da ljaddi minka aljad ducaa bacda kuli salaa buu nebigu ducadaa akhrin jiray ummaddana nebigu ducadaa u baray ducadiisu waa iimaan waa nafyiya isbaat qur-aanku waa iimaaniyaad qisasu الصaxaaba iyo siiradii nebi maxamed o dhan iimaankay ku baraysaa uxud غaswaةu uxud iyo غaswaةu bader غaswaةu xunayn imise duruus baa ummadda nebiga ugu duuban hadday ummaddu fahmaysa diin kam duruus fi hada الغazawaat beder 70 gaalay laayeen 70 gaalana way xidheen uxud 70 asxaabtii nebigaa la laayey intaasoo ragna waa laga dhaawacay labadaa غaswo culammadu waxay yidhahdeen midkee manfaco badan ibnu qayim aljawsi zaad almacaad wuxuu ku sheegay غaswatu uxud ayaa ka manfaco badan buu yidhi ka faa'iido badan ka cibro badan ka duruus badan ka futuuxaad badan buu yidhi kow
talabaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado 300 oo munaafiqiina isla markiiba gooni u baxday badr lama garan munaafiqiinta laakiin uxud munaafiqiinta muslimiinta ku dhex nool baa la gartay maalinkii darsiga labaad waxa weeyaan waxaa kaloo la tusay ummadda nebiga in muslimiinta inay dhintaana ay meesha ku jirto oo ilaahay qaarkood uu shuhadaa ka dhigan karo darsiga kale waxa weeyaan jamaacu nebigu qaaduu buurta dhigay jabal rumaat halkaa haddaan ka dhaqa haddaan adkaaniyo haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku yidhi dagaalkii baa bilaamay isla markiiba gaaladii waa la jebiyey khaniimadii bay gurteen muslimiintu jamaacaddii uu nebigu buurta duldhigay ayaa iskhilaaftay qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee khaniimadii xoolahan guranay na dhaadhiciya qola waxay tidhi nebigu ha dhaadhicinay buu joogay xaggay u dhaadhacaysaa khilaaf maxaa dhacay ijtihaadi weeyaan waa khilaaf ijtihaadiya weeyaan jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen qaarna way soo dhaadhaceen isla markiiba khaalid bin waliid iyo cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjebinta ka ilaalinayey oo kala jabay isla markiiba dhabarjebin bay ku soo sameeyeen muslimiintii oo khaniimadii oo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen 70 asxaabtii nebiga ka mid a ilaa 71 bay laayeen nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas aawe nusraddii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta abubakar uu dhex socdaa cumar uu dhex socdaa abubakar uu ku jiraa cusmaan uu ku jiraa mubashiriintii way ku jiraan muhaajiriintii way ku jiraan ansaartii way ku jiraan ahlulbeder oo dhan baa joogta ducadood waa mustajaaba cid ilaahay uga dhowiye kama jirto maxaa looga adkaaday nasrigii maxaa looga rafacay waxaa la yidhi nasrigii waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasriga uu ka rafacay ummaddaa maanta dhibaatada ku jirtae diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay aayaddii maxay ahayd maclin minkum man yuriidu awalkeygii id tusciduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi اlamr wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu alaakhira uma liyabtaliyakum walaqad cafa cankum afartaasaa ku dhacay fashal tanaasuc xub dunya macsiyadna way ku dhaceen amarkii nebiga haddii la jebiyey macsiyaa dhacday haddii asxaabtii nebi maxamed cid ilaahay uga dhow caalamka aysan jirin amar nebi maxamed ka soo fulay qaarkood hadday ijtihaad u jebiyeen nebigoo la jooga nasrigii laga rafaco 70 nin ku dhinteen oo nebi maxamedna lagu dhaawacay ummadda maanta taarikusalaagii ciidda ka batay nasri ilaahay see ku filanaysaa allah ina fahamsi fa walaalayaal maa huwa alxal xal waa maxay iqaamat alumma cala addiin xal kale ma jire waa in ummadda mar labaad lagu dadaalaa oo lagu istaajiyaa maa kaana calayhi الnabiyu waالصaxaaba asxaabtii nebi maxamed iyo zamankii nebiga ummaddu waxay qabtay iimaan iyo diin haddee mar labaad ummaddu u soo noqoto gargaarka ilahay halkiisii buu taagan yahay gargaarka ilaahay waa halkiisii diyaar buu ilaahay leeyahay gargaarkiisi laakiin ciddii loo gargaarayaa caalamka jiran maanta gargaarka waxaa la sheegay in mu'miniin loo gargaaraayo ina allaha maca aladiina taqow maciyada ilaahay muttaqiin baa la sheegay inay helayaan aaway muttaqiintii aaway mu'miniintii wallaahu yuxibu almuxsiniin baa la yidhe aaway muxsiniintii wallaahu yuxibu asaabiriin baa la yidhe aaway saabiriintii ina allaha maca asaabiriin baa la yidhe aaway saabiriintii maanta
sifaatkii qur-aanka way ku taallaa laakiin dadkii sifaatkaa qabay maanta caalamka intay joogaan fa juhdiga dacwadda walaal waa inaad fahamtaan walaalayaal waxaa dacwadda looga dalinayaa waxa weeyaan war mar labaad ha soo noolayno sifaat aliimaaniyaat sifaadkii lagu mutaysanayay gargaarka ilaahay iyo maciyada ilaahay iyo maaragtay nusradda qaybiga ayaa looga dalinaya dacwadda in lagu soo nooleeyo mar labaad taasaa dacwadda looga dalinayahay khuruujka 4 bilood iyo 40ka waa wasaa'il weeyaan والوسائل لها حكم المقاصد ولكن الهدف هو معي إحياء جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا النول يا الله قلت فرق لي ويحليه النبي محمد ولي مدي محولي مدي النبي محمد دين ده ما يسترن إيمان كاملة دين ده ما يسترن دين ده ما يسترن دين تو الزمن كينا كتبت يكون ده ما يسترن تهي نلش البشرية ده وكما قنت هل كان النبي محمد دين ده وكل ده ما يسترينا ما هين كتب والله وحو كل ده ما يستري حياة الصحابة رضي الله عنه نلش أصحاب ده دين تو كل ده ما يسترن حياة الصحابة وحياة دي إلهي ورالك كان نقضي ويان إلي رضي الله عنه فلذلك ولا ما تفردي نوم الجوب فردي نوم الجوب يوالله من نفت هذا كود دال عالم كنا وكسوقيا ساد نفت هذا كود دال نفت هذا ساد إلهي يقول دوا اللهي بشر كادوية دا كنا ولا آد إلهي حقوق وقوير إلهي ودوا إلهي تاسا إلهي إنك ينو دورتي هذا الشغل أو كعنو إلهي الدعاء إنه أقبليا إلهي بينو قرقارايا حبيب النجار تضبات السنة أيو سنة بعابدها أي صدح نبا صومرتو الرسول وحيري أنو سنة بكاسنا عابدا برس يحنون كان وانقبا الدين اللي مدقنو ميبا كدقنا هاي هذا ديدو عيسان وان إسلامي هذا ديدو عيسان وحنون كان إلهي يقدو القاضو أنا وان راعي وان الإسلام وأدعيين حنوكي با إلهي كدو القاضي هروك إسلامي ويسو دافين مقالة دي بإيمادين دادكي بي دينتي إيمانك وقو ييرين مركاسا الله تشهدون ليلي صدح ذنن وح عصوب بي لإيمادين هل الله يو حبيب النجار ما مغلي قوم قيسي إني وتشهدين صدح رسول وكسعوا تمارك تاني من عند الله بمفسرين تولادين قارنوا وعير هذا النبي عيسى صدري هلو ما جرس كودا جي والدعاء ويا ساعدة قال لي ساعدة نوعي قساني الله هنا فهم سيو فاسوقع بيننا إن شاء الله ويمدي قرآنك هو عجيب ويا وقلبك قرآنك الله شيء قصداس وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلامركي بو صور دي أورد كي سبا قرآنك الله شيء رجل ما بوحدا اللهم مرخاتك عي سعد كي سبا قرآنك الله شيء هذا الكوكوه لنا قرآن إلهي وكل شيء محير يا قوم تلك يوم اتبعوا المرسلين كوا الراعة وتكدوا بالليبان إنسانه اتبعوا من لا يسألكم أجرا ولما نمن كان أجر يا مشقايد نقضوني مايان سكر راعة وتكدوا بهنون إنسانه يكونوا يهانون سيهين محو يري بالليل نمن كان واحد بيا نقضوني مايان لعاق نقضوني مايان محو يري مركي ودعيين إلهي عافماتك وصيي أي حول الربين وصيي لي markaas ay ku yiraahdeen anagu waxba ma qaadano ilaahay dartii baan ummadda wax ugu sheegnaa dadkana xaq ilaahay baan ugu yeernaa shaqadana waa shaqo ilaahay noo doortay annaga way hanuunsan yihiin buu yidhi oo nimankan diintu wayba ka muuqataa iyaka taqwadii baa ka muuqata iimaankii baa ka muuqda daacadii baa ka muuqata cadaaladii baa ka muuqata ixsaankii baa ka muuqda noloshoodii baa diin ka muuqataa waan arkay anigu ariska raacood ku daba liibaanaysaan markaasay saddexdii rasuul waaba iska iloobeenoo isagii bay markaa qabteen baa la yidhi markaa bay ku yidhahdeen adiguna ma raacsan tahay wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaaha ee abuuray i bilaabay ee xaggiisa loo noqonaayo ee makhluuq oo dhan iska abuuray kaa inaan caabudo xaq bu igu yeeshee cibaadadiisuna waa igu waajibe maxaanan u caabudayn buu yidhi ilaahaas kaasi xaggiisa igu yeedheene markaasay ku yidhahdeen diinta ka noqo kama noqonaya buu yidhi dhulkay ku aaseen baa la yidhi markaasay miishaar duldhigeen ka noqo diintaada culimmada qaar waxay yidhahdaan maye meel dhagaxle intay dhex seexiyeen
ayay dadkii magaalada ku yidhaahdeen qof walooba dhagax qaadoo ku dhifo sidaa ha ku dhintee xabiibu najaar cajiib innii idan la fii dalaalin mubiin haddaan diinta anuu aan ka laamo baadi cad iyo dalaal cad baan ku suganahay buuhi khasaaro cad innii aamantu birabbikum faasmacuun halkaa isagoo jooga buu dacwadda fidinayaa u fiirso innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiinna ayaan rumeeye fasmacuunii maqla buu yidhi waa markii u dambaysay naftu ay ka sii baxayso ee midida loola dul taagan yahay ayuu hadalkaa ku hadlayaa waxaa la yidhi way dileen ilaahay qur-aanka waxuu ku sheegay mar allii markay dileen isagii ilaahay wuxuu ku yidhi qiila adkhuli iljanna adigu horta jannada gal baa lagu yidhi xabiibu najaarow jannadii markuu galay ee manaasisheedii iyo karaamadii markuu arkay muxuu yidhi qaala yaa layta qawmi yaclamuun ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu xayan wamayita isagoo nool iyo isagoo dhinsan baa ninka qoomkiisa u nasteexeeyey buu yidhi cajiib way dileen markay dileen iyokii may raaxaysan kamay dembayn ninka ay dileen waa nin daaciya waa nin dareen ummadeed leh waa nin ummadda u samafalayey waa nin ummadda u nasteexaynayey 3 rusulu u kaalmaynayey xaqa ayuu ummadda ugu yeedhayey ninkay dileen nin ciyaara ma aha waa nin ilaahay agtiisa qiimo kula weeyaan waxaa la yidhi wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundin min aلsamaa wamaa kunna munziliin in kaanat ilaa sayxa jibriil calayhi salaam baa lagu yidhi waagu markuu baryey wada kacaan hal mar keliya ku qayli baa la yidhi hal mar keliya ku qayliyey qalbiga iyo maskaxdaa wada dilaacday baa la yidhi kam muslimaa maanta caalamka ku dhimanaysa oo lagu laynayaa ilaahaw noo gargaar muslimiinta duca kasti salaad walba meel kasta gaalaa laga habaarayaa miya habaarkii maanta hal nin bay dileen qoomkaasi halkii nin baa ilaahay raaciyey qoomkii oo dhan hal malaayiin muslimiina maanta la laynaya caalamka aaway ducadeennu halkay tegaysaa waa duco shuruuddii baan loo buuxin shuruuddu waa maxay dacwadda horta ka horraysa 950 sano nuux ayuu ummaddiisa qoomka ugu yeedhay qoomkiisuu diinta iimaanka ugu yeedhay markay gaalnimadii ay ku caddaatayna rabbi innii maqluubun fantasir ilaahow layga qaalib noqoy haddee toole ilaahow ii gargaar buu yidhi 950 sano dacwad hal habeenna maaragtaane duco ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر با إلهي مدمرات الإلهية صمد يدلك بي اللغفري هل قفوا قال أدويدكم أهل المالكاس فأولا لي شروطها بوحنو دعوتها نكعنو حق دعوة مركا فولنو دعادنا مستجابا نغن وحان دونا إلهي مركا ينسينا يا ده الشغل هنا نكعنا ديار مونهي ayaa bal u diyaara cimrigiisa laga bilaabaa maanta laga bilaabaa inta u hadhay inuu diinta ka shaqeeyo taaga gacanta la bakayline lama goosanaye allah inoo dhib yareeyo aamiin dhahada walaalayaal dhegaysta mid baan iga dalbaynaa saad u dhegaysateen awal ilaa aakhir ha kicin haddaba fadhiya ijtimaaci baa dhow ugu yaraan 300 oo jamaaca sanadkan doonaynaa inay dalka gudihiisa iyo dowladaha afrika oo dhan ay jamaacaddeenu gaadhaan maan doonaynaa culammada waxaan ka maqalnay hadba halka jamaacadadeennu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaafi maayo baa la yidhi hadba halka jamaacadadeennu ay gaadhaan baadilku inoo soo dhaaf khayrkeennaa socon baadilku halkaa inoo soo dhaafi maayo khayrkeennuna uu socon uu sii galay shaqada diinta wax weyn baa ku jira allah ina fahamsiiyo fa nuriid majmacan nin duca qaata habeen dambe jamaacadadii oo dhan habeen dambe soo xeroonayaan ilaa 100 jamaaca la filaya habeen dambe 4 bilooda inay soo xeroodaan haddii 500 oo jamaaca min 4 bilooda muqdisho ay ka baxdana weli inta suuqa ku hadhay ma yar yihiin ma yaro fa in sha allah bal halla hadhinin walowba xooggaaga iyo tamartaada iyo raganimadaada ilaahaa kugu deeqay adna ilaahay ku deeq khud min nafsika linafsika weeyaan marka lagu leeyahay ilaahay dartii u bax waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan dacwaddu cid wax u qabanaysid ma jirto adaa soo islaaxay dad badanoo muslimiinana sababtaada ilaahay ku toosin shaqadana maanta caalamka inooga furan
وفرصة سعيدة ويا فمركا إن شاء الله كل جن هرت وان يوتين عمرك